السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan Soomaaliya salaamayaa Soomaali weyn adduunyada caladeeda meel kasta ka joogto. Shirkeygan Jaraa'id waxaan maanta u qabtay inaan kula hadlo dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ah. Waxaan la hadlayaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaan leeyahay horta dowladda cusub qabali oo soo dhaweynayna ilaahay xilkeena ha idin fudaydiyo. dowladda waxa horta la caqabadooyin waaweyn hadday ka guuleystaan maaragtay way najaxayaan, hadday se ka guuleysan waayaan badweyntan ay ku dhex jiraan baa liqaysa. waxay la nool yihiin qowmiyado fara badan. qowmiyadahan siday uga badbaadi lahaayeen iyaga u badbaadi lahaayeen ayaa Soomaaliya oo dhan laga rabaa. wuxuu talo iyo tusaale ka geysanaya. waxaan leeyahay maanta wuxuu joogaa Eritrea, wuxuu la hadlayaa garab ka mida garabada dagaalamaya OLF yada qudheeda. waxaan leeyahay hambaliyo maadaama curashada geeska Afrika aynu ku noolay ka curatay aad la jaaqaadeen. aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. taa iyadana waa salaamaya. xaggii waxaa joogay madaxweynaha iyo Jawaari Maxamed. Jawaari waxaan leeyahay waxaad u ololeynaysaa in Diriraba iyo Addis Ababa magaalo Oromo noqdaan. Oromada iyo Soomaalida waa dad islaam oo walaalo ah. waxaa lagaga fadhiya heshiisiintoodii, dhexdhexaadintoodii, qaxoontigii oo joogo Diriraba inaad adoo xukuumaddii wata aad taadama ahayn. arrinkan wuxuu u baahan yahay dhaqan. oromada waxaan iyagana leeyahay oromoy Soomaali qabiil iyo qori midna looma tilmaamo. waa jaamacaddooda university-ka dhammaan ay kasoo wada baxeen. waa qori iyo qabyaalad. waxa maalmihii hore tegay Diriraba oo Jawaari Maxamed uu ka daba socday tamani bayani oo nin Amxaari ah oo Soomaalida soo eegayay. waxay la mid tahay isna inuu ka daba tegay tamani bayani oo raadkiisa qaadayay maadaama nin Amxaari yahay. maxaaradii Oromadana ay maanta ka dhaxayo ficiltan xoog leh waynu wada ognahay. tamani bayani isagu markuu u doodayay Oromada iyo Amxaarada way jirtay, laakiin Jawaari Maxamed wuxuu u doodayaa Diriraba iyo inay Addis Ababa noqdaan magaalo Oromo. Oromada waxaan leeyahay war dad walaalaynu nahay, dad islaamaynu nahay. idigu Soomaali colaadeedii waa caddaysateen. maalintii dhawada jigjiga qallaasuu ka dhacay Hargeysa laydinku soo dhaweeyey, laydima laynin, laakiin idigu dadka nool baad guwaysaa. Soomaali weli qabyaaladda ama nacaybka Oromadu ma wada gaadhin. waxaynu u baahan nahay dad islaamaynu nahay, dhiiggeenu waa xaaraan buu kala yahay. qowmiyado badan baynu ku dhex nool nahay oo aan islaamba ahayn, kuwa inaan la noolaano. markaa sidii laysu iman lahaa ka shaqeeya. dadka weliba dagaalamaya waa dadkii baadiyaha joogay, aqoon-yahankii, waxgaradkii. Oromadan la hadlaya anigu maanta. dowladda waxaan kusoo gabagabaynayaa madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa. waxa ceebtiina iyo maaragtay wanaaggiinu ku kala baxayaan sidaa ka yeeli lahaydeen madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar ee aad ka qayb qaadataan ayaa horta mustaqbalkiina iyo sabcaddiisu ku xidhan yihiin. ma aha inaad tada heestii Soomaaliya toos baa la qaaday, calankii horea la soo celiyey. dadku Soomaali inay yihiin Etoobiyana ma dafirsana, caalamkana ma dafirsana, laakiin dalku waa dal Etoobiya dad ka mida wey. madaxweynayaashii ka horreeyay madaxweyne farayaal guribuu ku wareejiyey, uu maamuso sharaf buu u sameeyey. adna maanta xukunkaasu markuu dhaco sidii aad ka yeeli lahayd ayuun baan kugu eegaynaa. daawadiisa waa loo fasaxaa. dadka buunbuuninaya maaragtay waxgaradka madaxweynuhu wuxuu hore u geeyey. marka maamul la dhisayo midaa waxba geysan ayaa wax gaadhaan. dhibaatadii hore ee dadka maamulka uu daadejinaya wax ka gaadhay horta waanu ka xunnahay. ilaahay aga boogadhayo intii dhibaatada anaa hor xadhisto. laakiin waa nin siyaasi oo madaxweyne Soomaaliyeed
dadka maanta ku diganayow ha ku duganina wax badan buu qabtay wax badan buu qabtay marka wax la dhisayo way adag tahay laakiin marka wax la duminayo way fududahay marka hadalkii waxaan kusoo gaabinayaa mudane madaxweyne adiga xukuumaddaada sidaad ka yeeshaan baynu eegaynaa madaxweynaha xidhan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu